maanta waxaynu ka hadlanaa dhicii bangiga ugu weyn ee abid kaas oo ka dhacay dalka Brazil waxaana loogu magac daray lacagihii habaarnaa sanadkii 2005 koox tuuga oo ka koobnay 34 xubnood ayaa jabsaday qasnada bangiga dhexe ee dalka Brazil waxayna gacanta ku dhigeen 80 milyan oo dollar dhacdadanna waxa loo aqoonsaday dhicii ugu weyn ee abid loo geysto bangiyada dalka Brazil arinta cajiibka ayaa in systemka ilaalada ee bangiga uu yahay mid aad u sareeya oo ka kooban kamerooyin leerka laysarka ee aan isku qaban iyo xataa aalada dareemi kara dhaqaaqa ugu yar haddii cid uu soo gasho gudaha banka haddaba sidii ay tuugadan ugu suurta gashay inay gudaha u galaan banka jabsadaan qasnadaha isla markaana dhacaan lacag aad u fara badan ugu dambeyn u baxaan si nabadgelyo ah iyagoo aan ka muuqan kamerooyinka banka ama uusan qaylin alarmigu baaritaanka kiiskani waxa uu socday sanado badan waxaana la oran karaa lacagtii ay xadeen tuugadu waxay ahayd mid habaaran oo aysan calaf ku lahayn waxayna gaareen heer mid walba oo kamid ah uu ka shaalayo ka qayb qaadashada dhaca sidee ayaa gacanta loogu soo dhigay dhammaan tuugadii ka qayb qaadatay dhaca sidee ayuu dhacani daaha uga qaaday musuqa ballaaran ee ka dhex jira gudaha ciidanka maanta waxaynu ka sheekaynaynaa mid kamid ah sheekooyinka ugu cajiibsan ee aan ku soo qaadano go'aanso channel waxaadna dareemi doontaa inaad daawanayso filim la jiray oo aan dhab ahayn waa aroornimo isniin ah 8 Agosto 2005 mid kamid ah saldhigyada booliska dalka Brazil ayaa la soo wacay waxaana loo sheegay in la dhacay bangiga dhexe ee dalka xaruntiisa magaalada Fortaleza wicitaankani waxa uu ka yaabiyay saraakiisha shaqada ku jirtay sababtoo ah banka dhexe ammaankiisa si weyn ayaa loo sugaa horena uma dhicin in la jabsado ama xataa la isku dayo cutub kamid ah booliska ayaana u dhaqaaqay dhinaca banka sida aan soo sheegnay waxay ahayd maalin isniin ah 2 maalmood oo fasax ayaana laga soo noqday shaqaaluhu waxay fureen albaabka bangiga waxayna u degeen qaybta hoose oo dabcan ahayd qasnada lagu kaydiyo lacagaha waxayna ku baraarugeen dalool laga qoday bartamaha qolka daloolkani waxa uu ku xiriirsan yahay god dheer oo dhulka hoostiisa ku yaala booliskuna waxa uu ku qiimeeyay daloolkan inuu aad ciriiri u yahay oo uusan jirin qof mari kara su'aasha koowaad ay weydiiyeen shaqaalaha banka waxay ahayd lacag intee lag ayaa la xaday weli lama samayn tiro koob dhammaystiran laakiin lacagta maqan waxay kor u dhaafaysaa 100 milyan oo riyaal ayay ugu jawaabeen shaqaalaha bangigu haddaba markii la sameeyay xisaabin sax ah waxa la ogaaday in lacagta maqan cadadkeedu dhan yahay 164 milyan oo riyaal dabcan waa lacagta dalka Brazil marka loo bedelo dollarna waxay noqonaysaa 80 milyan culayska lacagtan waxa lagu qiyaasay 3500 oo kiilo waxaana lagu qaadi karaa 3 gaari oo buuxa malayso 3 gaari oo ay lacag ka buuxdo haddii la isdul saaro waxay noqonaysaa buur qalin karta waxa ka dambeeya tuugadu waxay ahaayeen kuwa khibrad u leh mana aysan qaadan lacagta cusub ee dhawaan la daabacay sababtoo ah lambarka taxanaha ee ku qoran lacagtaas ayaa isku xigta waxaana fudud in la dabagalo oo la soo helo taas beddelkeeda waxay qaateen lacag qadiimi ah oo muddo la isticmaalayay lambarradeeduna ay yihiin kuwa filiqsan oo aan isku xigin ugu dambeyn mid kamid ah askarta oo ahaa nin dhuuban laguna magacaabo Nias Obrera ayaa go'aansaday inuu gudaha u galo godka inkasta oo looga digay in godka miino ama dabin lagu diyaarin karo haddana wuxuu ahaa askari geesi ah gudaha ayuuna u galay waxa uuna gudaha u galay god qalabaysan oo leh marwaxado iyo layrar dhinacyadana waxa ka raacsan alwaaxyo dhaadheer iyo tuubooyin hawada ka keena banaanka laambadaha daaran ayaa ku dhaliyay dareen ah in tuugadu ay weli ku sugan yihiin agagaarka godka cabsi ayuuna dareemay wuxuuna u guurguurtay si taxaddar leh walow dhererka godku uu 70 mitir ahaa haddana inuu gaaro dhinaca kale waxay ku qaadatay 1 saac oo dhammaystiran ugu dambeyn waxa uu gaaray meesha uu ku dhammaado godku halkaas waxa yaala jaranjaro ku tirsan dhammaadka godka isagoo gacanta ku haysta bastooladiisa ayuu kor u fuulay jaranjarada afkii sare ee godka ayuuna gaaray dabool aan sidaas u weynin ayaana saaran cabsi ayuu dareemay sababtoo haddii uu daloolka madaxa kala baxo in tuugada dhexdooda uu madaxa kala soo bixi doono ayuu filayay geesinimo iyo dhiiranaan ayuu kaashaday waxa uuna iska wareejiyay daboolkii godka saarnaa madaxa ayuuna la baxay isagoo hareeraha eegaya wuxuuna dhex taagan yahay guri cidla ah oo sagcadiisa iyo gidaaradiisaba lagu daadiyay walax cad oo daqiiq u eeg bootarkan tuugadu waxay u isticmaashaa in aan calaamadaha farahooda laga helin meesha ay howlgalka ka fuliyaan gurigu wuxuu ahaa mid isku dhex daadsan oo alaabo kala duwan taallo jawaano ciidaha ayaana ka buuxa gudaha wuxuuna u fahmay in ciidan laga soo saaray godka la qoday sababta bannaanka loogu saari waayeyna ay tahay cabsi ay tuugadu ka qabaan in laga shakiyo wuxuu raacay jaranjaro kale oo guriga xaggiisa sare u kacda hadda wuxuu joogaa oogada guriga laga qorsheeyay dhaca bangiga wuxuu wacay saaxiibadiis wuxuuna u tilmaamay guriga oo aan sidaas uga fogeyn bangiga midabka gurigu wuxuu ahaa cagaar waxaana deganeed shirkad iibisa cawska gacan ku samayska ee garoomada la dhigo dhammaan warbaahintu waxay hadal haysaa dhaca banka waana kuwan wariyaasha oo isa soo dhoobay afaafka hore ee guriga laga abaabulay howlgalka
kani waa sawirka daloolka ay tuugadu ka sameeyeen guriga dhexdiisa. Kanina waa sawirka godka oo dhererkiisu yahay 70 mitir. Askartu waxay sameeyeen baaritaan dhammaystiran si ay u fahmaan habka ay tuugadu u fuliyeen dhaca. Waxayna arkeen in howlgalkan uu aad ugu eeg yahay mid kale oo 1 sano ka hor lagu dhacay bangi ku yaala magaalada Sombulo. Waa iska caddahay in qayb ka mid ah tuugada fulisay dhacaas ay ku lug leeyihiin dhacan cusub. Tuugadu iyaga ayaa aasaasay shirkadda cawska ee guriga deganayd. Taasina waxay ahayd sabab macquul ah oo yaraynaysa shakiga laga qaadi karo haddii ay ciid keenaan ama ay ka raraan guriga, waayo shaqadooda ayaa beeraha la xiriirta. Daboolka godka cabirkiisu waxa uu leekaa duleelka, waxayna mariyeen rinji la mid ah sagxadda guriga. Waxayna ugu talagaleen in ay ku qariyaan godka haddii ciid soo booqato ama hataa boolisku yimaado. Sida aan sheegnay, godka dhererkiisu waxa uu ahaa 73 mitir. Dhammaantiisna waxay ku qodeen qalab aan guux iyo shanqar lahayn. Ciidana waxay ku ururiyeen jawaano, waxayna ku xareeyeen qol guriga ka mid ah. Dhinacyada godkana waxay raaciyeen looxyo ballaaran iyo biro ka ilaaliya inuu soo dumo. Ugu yaraan 900 alwaax ayay isticmaaleen. 73 mitirba waxay u diyaariyeen layrar, marwaxado iyo qasabadaha biyaha oo aan shaqada looga maarmayn. Arrinta cajiibka ayaa ahayd in godka la geliyay taleefan line ah, sida uu sheegay mid ka mid ah tuugada oo la qabtay. Shaqadu waxay ahayd dhowr shifti oo kala duwan, habeen iyo maalin. Mar qura shaqadu ma aysan joogsan jirin oo koox ayaa ku jirtay. Caqabadaha ugu waaweyn ee qabsatay waxay ahayd ciidda maalmihii hore dhowr goor ay gaari ku qaadeen, waxayna dareemeen dadka oo indho shakila ku eegaya. Waxayna fahmeen in habkani howlgalkooda oo dhan u horseedi doono fashil. Mid ka mid ayaana soo jeediyey fikradda in ciidda lagu guro jawaano laguna kaydiyo isla guriga. Qol walba sagxadda ilaa saqafka ay ka buuxiyeen jawaanada, waxayna albaabkiisa ku xiri jireen bulkeeti si haddii la soo booqdo aan looba arkin qolkaas. Habkan ayayna ku buuxiyeen dhowr qol oo guriga ka tirsanaa. Daarada dambe ee guriga ayayna u isticmaaleen qarinta ciidda. Waxay ku dadaaleen inay ku simaan rugleyda loo isticmaalo samaynta waddooyinka laamiga ah. Godku waxa uu isku xidhay guriga iyo bannaanka. Waxa uu ahaa mid siman oo si toos ah u socda. Hal meel oo laga duway bullaacadda qashinka ayuu qalooc ku lahaa. Marka la gaaro bangiga hoostiisa, kor ayaa loo qoday ilaa laga gaaro qaybta underground-ka ama dhulka hoostiisa ee bangiga, oo sida aan soo sheegnay ahayd meeshii ay yaalaan qasnadaha lacagtu. Qaybtan waxa yaala wiishash lagu qaado sanaaduuqda waaweyn ee bangiga. Aaladan jaallaha ee halkan ka muuqata ayaynu ka hadlaynaa. Waa wiish hydroliga oo dhinacyada oo dhan u dhaqaaqi kara. Kuwanna waa tirarka haya wiishka, waxayna ku rakaban yihiin qaybta hoose ee bangiga. Inta lagu guda jiro shaqada, si joogta ayaa loo isticmaalaa wiishkan, waxaana lagu qaadaa sanaaduuq halka mid uu culayskiisu gaaraya 500 oo kiilo. Wiishka lagama saaro qaybta hoose ee gudihiisa ayaa marba dhinac wax loogu qaadaa. Waxa dhacday maalintii Jimcaha in aan shaqada laga rawixin, wiishkana la taagay meel ka caawisay tuugada inay ka qarsoobaan kamarada oo aanan la arkin godkooda. Arrintani waxay shaki ku abuurtay dembi baarayaasha oo isweydiiyey inay jiraan qayb ka mid ah shaqaalaha bangiga oo gacan siiyey tuugada. Arrinta labaad ee tuugada ka caawisay ayaa ahayd in sanaaduuqyada aan lagu dhejin gidaarka oo loo baneeyey meel ciriiri ah oo cabirkiisu yahay 60 sentimitir. Sababta marinkan loo baneeyey waxay ahayd tiirarka wiishka oo ka sokeeyey gidaarka. Si fiican u fiiri sawirka sanduuqyada, lacagtu kuma dhegana gidaarka. Waddada ciriiriga ah ee u dhaxaysa sanaaduuqda iyo gidaarka waxay ka caawisay tuugadu in ay maraan ayna kaga badbaadaan kamirooyinka bangiga oo marka horeba tiradoodu aysan ka badnayn 6 kamaro. Qodobkani wuxuu ahaa cilad amni oo bangiga ka jirta. Tuugaduna way ka faa'iidaysteen. Marka laga yimaado kamirooyinka bangiga, waxa ku xidhna aalado dareemi kara dhaqdhaqaaqa, kuwaas oo haddii ay xarakaad dareemaan cod dheer ku yeerinaya nidaamka digniinta ee bangiga. Haddaba tuugadu sidii ay uga badbaadeen aaladahan? Ugu horrayn, habka loo xidhay aaladaha bangigu waxa uu ahaa mid qaldan. Khubraduna waxay sheegeen aaladahan in lagu xidho gidaarada. Taas beddelkeedana waxa lagu rakibay saqafka sare ee dhulka ka fog, waxaana soo baxday meelo badan oo aysan dareemi karin dhaqdhaqaaqa ka jira. Arrinta khatarta ayaa ahayd in tuugadu ay ogaayeen ciladan. Markan baarayaashu waxay hayaan caddayn kale oo sheegaysa in tuugadu gacan ka heshay qaar ka mid ah shaqaalaha bangiga, balse nasiib darro ma garanayaan qofka uu yahay. Sida caadada ah, marka baaritaan lagu sameynayo baaris aan loo hayn wax caddayn ah, waxa la sawiraa senaariyo sheeko mala awaal ah oo tilmaamaysa sida ay wax u dhaceen. Intii u dhaxaysay 5 ilaa 6 galabnimo ee maalinta Jimcada ayay tuugadu gudaha u galeen bangiga, waana saacadda ugu dambaysa shaqada. Qaybta hoose ciidima joogto, waana la xiray maadaama aysan shaqadu dhammaan. Aaladaha dareemada dhaqdhaqaaqa shaqadu ma aysan bilaabmin oo waxay ku programsan yihiin inay active noqdaan marka shaqada laga rawaxo. Saacadaas ku beegan 5 ilaa 6 ayay si fiican uga faa'iidaysteen. Kursi iyo alwaax ayayna ku aadiyeen godka ay ka soo baxeen, waxayna isku hubiyeen waddooyinka ay adeegsan doonaan. Inkasta oo ay 2 maalmood oo fasax haysteen, haddana shaqadooda ayay hore ka bilowdeen oo jawaano ay soo diyaarsadeen ay ku urursadeen lacagta duuga oo aan soo sheegnay sababta ay u doorteen.
fureen salada lugaha ee supermarketyada oo ay ku xireen xarka lagu jiido ayay saareen jawaanada lacagta sidaas ayayna ku dhaafiyeen god dhererkiisu yahay 73 mitir jawaanada lacagta mid walba oo kamid ah waxa ku jirta 500 kun oo riyaal maadaama ay xadeen 164 milyan waxay ka dhigantay inay buuxiyeen 330 jawaan mid kamid ah tuugada oo aad u xamaasadaysnaa ayaa yiri saaxiibayaal aynu jabino rikoodhka adduunka ee dhaca bangiyada waqtigaas rikoodhka waxa haystay tuuga dhac ka fulisay dalka Belgium oo haday dheeman lagu qiyaasay 100 milyan haddii ay noo suurta gasho muuqaal kale ayaynu kaga sheekayn doonaa dhacdadaas hogaamiyaha tuugada ayaa u sheegay inuu iska dhaafo damaca maadaama ay haystaan lacag tiro beel ah oo culayskeeda aan la qaadi karin dhammaan xubnuhuna way ku qanceen hadalkiisa maadaama ay haystaan 164 milyan oo riyaal oo ay laba jibaar dhaafeen hadafkoodii hore oo ahaa 80 milyan oo riyaal haddii ay rabaan inay jabiyaan rikoodhka tuugada adduunka waxay ku qasbanayeen inay gaaraan wax ka badan 200 milyan oo riyaal culayska oo hadda ah 3500 oo kiilo ayaa gaari lahaa in ka badan 5000 oo kiilo ciidanku baaritaanka waxa uu ka bilaabay guriga howlgalka laga abaabulay iyo shirkadda kireysatay waxayna ogaadeen liisanka ganacsiga ee shirkadda uu ku qoran yahay in lagu magacaabo Police Sergio waxaana laga yaabay sababta loogu ogolaaday sawir uu xiran yahay koofiyad adkaysa in la aqoonsado halkana waxa ku jira tuhun kale deriska ku nool agagaarka guriga markii wax laga weydiiyay tilmaamaha ninkan waxay sheegeen inuu ahaa nin aad u furfuran oo dabeecad wanaagsan oo fadhiista maqaayadaha xaafadda xiriir wanaagsan la leh deriska oo u arkay nin wanaagsan oo xaafadda soo degay way iska cadayd in kalsoonida uu ka abuurtay bulshada ay ka badbaadisay in laga shakiyo sidoo kale baarayaashu waxay dabagal ku sameeyeen meelaha lagu iibiyo baabuurta maadaama lacagta la dhacay ahayd mid tiro badnaan iyo culays isku darsatay waxay qiyaaseen inay qasab tahay in la helo gaari nooca xamuulka ah ama dhowr gaari oo yaryar baaritaanka waxay ku ogaadeen inay jirto shirkad lacag ku iibsay dhowr gaari oo waaweyn ninka gatay wax lagu magacaabo George Charles ninkan laftiisu wuxuu lahaa shirkad iibsa baabuurta arrintanina waxay yeelaysay shakiga laga qaadi karo laakiin waxa indhaha ku soo jeedisay lacag kaash oo uu ku iibsaday Charles iyo shirkadiisa waxa loo furay galbaariseed gaar ah oo laga gungaarayo shakiga laga qaaday waxayna la xiriireen xogahayaha shirkadda oo u sheegay in Charles uu shaqo degdeg ah u baxay jawaabtaas markii ay maqleen waxay garteen in baabuurtan xiriir la leeyihiin dhaca bangiga sababtoo ah waxay qabeen shaki ah in tuugadu ay ka soo jeedaan magaalada São Paulo xisaabta ku darso in magaalada Fortaleza ee uu ku yaala bangiga la jabsaday ay 300 oo kiiloomitir u jirta magaalada São Paulo isweydii sababta ay baarayaashu ugu maleeyeen in tuugadani ay ka soo jeedaan magaalada São Paulo haddii aad xasuusato bilowga muuqaalkan waxaan soo sheegnay in hal sano ka hor gaar ahaan sanadka 2004 la dhacay bangi ku yaala magaalada São Paulo markaas tuugadu waxay isticmaaleen farsamo la mid ah midan god ayay qodeen si ay bangiga u dhacaan baarayaashuna waxay fahmeen in baabuurtaas lagu qaaday lacagtii Charles haddii uu yahay gudoomiyaha shirkadda maxaa ku qasbay inuu raaco gaari la iibiyay baaritaankooda ayay sii wateen waxaana lagu wargeliyay in gaarigu uu marayo Belo Horizontal uuna yahay gaari weyn oo nooca baabuurta qaada ee loo yaqaano abraarka saraakiil ka tirsan ciidanka ayaa qaatay diyaarad helikobtar ah waxayna ka daba tageen gaariga inta aysan gaarin ayaa loo sheegay taliyaha in gaarigu uu istaagay mid kamid ah xarumaha booliska ee magaalada Belo Horizontal iyadoo aan la qaban gaarigu inuu istaago saldhig boolis waxa ka dambeeyay darawalka oo aan waxba ka ogeyn waxa jira isagoo oo ku jira fasixiisii toddobaadka ayuu taleefon ku soo wacay gudoomiyuhu wuxuuna u sheegay inay jirto shaqo degdeg ah lagana rabo in tiro baabuur la gaarsiiyo magaalada São Paulo waxa uu la yaabay sababta shaqada degdeg ah ku soo beegtay Axadda oo ahayd maalin fasaxa sidoo kale waxa uu ka yaabay sababta gudoomiyaha shirkadda oo aan weligiis la safrin uu maanta u raacayo intii ay dhexda sii socdeen waxyaabo badan oo uu ka shakiyay ayuu arkay tusaale ahaan gudoomiyuhu dhowr goor ayuu dalbaday in loo istaago meel kaalin ah una hadalka u adeegsaday taleefanada danta guud ee wadooyinka wuxuu isweydiiyey sababtuu adeegsan lahayd taleefankiisa gacanta mid kamid ah meelihii la istaagay ayuu ka faa'iideystay darawalku waxa uuna daaqadaha ka eegay gawaaridii rarnayd wuxuuna arkay hirmooyin lacag ah oo dhex daadsan isla markiiba wuxuu xasuustay dhicii bangiga ee laga sheegay warbaahinada kala duwan wuxuuna go'aan ku gaaray inuu gaariga taago marka ay gaaraan saldhigga ugu horeeya booliskuna waxay ahaayeen kuwa haya warbaahinta gaarigan waxayna kala hortageen bistoolado waxaa la qabtay darawalkii iyo gudoomiyihii waxaana soo gaaray ciidankii watay helikobtarka waxaana la baaray baabuurtii oo laga helay 6 milyan oo riyaal marka la eego lacagta la dhacay oo ahayd 164 milyan waa xaddi iska yar laakiin waa fiilo la raaci karo oo fududayn karta dabagalka lacagaha kale markii ay wareysteen Carlos waxay ogaadeen inuu la dhashay Mark Rajro waxa kale
kale oo ay ogaadeen inuusan si toos uga qayb qaadan dhaca oo kaliya uu fududeynayay baabuurta loo baahan yahay. cidna kama garanayo dadka hawsha fuliyey, inkastoo aan qaarkood la kulmay. lacagta aan wadnana waa qaybtii aan helnay aniga iyo walaalkay. sidaas ayuuna yidhi Carles. si wanaagsan ayuu ula shaqeeyey ciidanka, wax walba uu garanayayna wuu u sheegay. isku darka dadka dhaca fuliyey waxay ahaayeen 34 qof sida uu sheegay, balse ma uusan garanayn qof aanan walaalkiis ahayn. waxay tuseen sawirada qaar ka mida tuugada si uu sheego haddii uu arkay. nasiib wanaag wuxuu aqoonsaday wejiyada qaar ka mid a raggii la tusay. waa kuwan sawirada iyo magacyada raggii u aqoonsaday Charles. waa 10 qof oo ay ku jiraan Carles, walaalkiis Mark iyo ninkii shirkadda aasaasay ee Paulo. dabcan magacani waa kofar, ma aha mid jira. sidoo kale waxa ku jiray nin lagu magacaabo Alimau oo ka mid ahaa tuugada ugu caansan Sao Paulo, isla markaasna ahaa saaxiibka ugu dhow ee Mark. waxa kale oo ka mid ahaa nin lagu magacaabo Moses oo ka mid ahaa tuugada ugu muhiimsan ee howlgalka fulisay. ninkan waxa uu leeyahay sheeko gaar ah. 4 sano ka hor ayuu ka baxsaday xabsiga ugu adag Brazil ee Carandiru, isaga iyo 53 tuug oo kale. habka uu baxsadayna waxa uu la mid ahaa habka loo dhacay bangiga. god dheer ayaa xabsiga dhexdiisa laga qotay, bannaanka ayaana loo baxsaday. sanadkii 2004 waxa uu qayb ka ahaa dhicii bangiga Sao Paulo. sanadka 2005 mar labaad waxa uu ka qayb galay dhaca bangiga Fortaleza, waxaana gadaal laga ogaaday in Moses uu ahaa shaqsigii isu keenay kooxda cusub ee lahaa qorshaha dhaca. ugu dambayn ciidanku waxa uu ku raad joogaa shabkad isku xiran oo tuuga ah. sidee ay u dabageli doonaan? ma ku guulaysan doonaan soo qabashadooda? waxaa inoo bilaaban doonta qaybta ugu xamaasadda badan sheekada. haddii aad ku fikirayso inaad soo qabato kadibna aad waraysato, khibrad ayaa kugu dhiman baarista. tallaabada saxda ah waa midda ay qaadeen booliska Brazil. waxay korjoogto ka qabteen dambiilayaasha si ay gacanta u dhigaan lacagaha ugu badan ee suurtagalka ah, isla markaasna ay u ogaadaan xubnaha kale ee kooxda. waxaa ka mid a waxyaabaha ay boolisku dabagalka ku hayeen: taleefon nambar raadkiisa laga helay guriga howlgalka laga hagayey, qashinkii iyo alaabtii isku daadsanada ee taalay guriga. markii la baaray waxaa laga soo dhex saaray kaar lacag ku shubasho oo ay isticmaaleen tuugadu. waxay xiriir la sameeyeen shirkadda isgaarsiinta oo ka caawisay inay ogaadaan taleefanka lagu shubay lacagta. waxayna bilaabeen inay dhegaystaan taleefanka ila maqal mid ka mid a codadkii laga duubay nambarka. runtii codkan waxaad ku arki kartaa sida tuugadu uga cabsanayeen isticmaalka lacagta oo ay ka baqayeen in laga shakiyo ama lagu dabagalo. Olha, João. E aí? Beleza? Tem jeito, cara. Tô tentando me segurar, mas tá foda. Por quê? Eu vou explodir, cara. Por quê? Eu vou comprar, caralho. Vai o quê? Eu vou comprar, porra. Eu queria me segurar até ano que vem, mas tá foda. Beleza, depois se fala. Falou, tchau. ciidanku waxa uu ku guulaystay inuu aqoonsado qofka isticmaalayay taleefanka. waxa lagu magacaabaa Antonio. lama yaqaano guriga uu ku nool yahay, laakiin waxa la yaqaanaa aaga ama xaafadda uu degan yahay. ninkan galkiisa waxa loo dhiibay koox gaar ah oo shaqadoodu ahayd inay dabagal ku sameeyaan. mar labaad ayay dhegaystaan taleefan kale oo uu wacay. codkani waxa uu ahaa mid ka muhiimsan kii hore. Alô? Sim, olha, faz favor pra mim. Isso tem que ser urgente, tá? Era pra você ir na papelaria comprar mais ou menos um kit de liga, caderno e... só caderno, que as canetas tem aqui. E trazer só aqui na portaria, entregar pra nós e ir embora. Se nós não estamos podendo sair. E é responsa. Tá bom. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau. markan Antonio waxa uu la hadlayaa saaxiibadiis, wuxuuna weydiistay inay soo iibso laastiig ama cinjir. dabcan waad fahmi kartaa cinjirka lagu xiro lacagaha. xaddiga badan ee laastiiga ah waxay fahmeen ciidanku in lagu xiri doono lacagaha la soo dhacay. qaybta IT-ga u qaabilsanna waxay ku guulaysteen inay ogaadaan meesha uu ka soo hadlayo Antonio. gurigan idin muuqda ayuu ku dhuumanayay. kormeer ayayna ka qabteen iyaga oo ku labisan dhar shacab oo aan laga shaki karin. waxayna soo fariisteen maqaayad ku taala kasoo horjeedka guriga. muddo kadib waxa guriga ka soo baxay 2 nin. waxay dareemeen in mid ka mid ah aad u fiirinayo oo uu ka shakiyay. waxayna qaadeen tallaabo degdeg ah. bistoolad ayayna ku qabteen. guriga ayayna go'doon geliyeen. sidoo kale gurmad ayay dalbadeen. daqiiqado kooban gudahood guriga ayay gudaha u galeen. dhammaan xubnihii jooga ayayna gacanta ku soo dhigeen. sidii ay filayeen lacaga fara badan ayay guriga ka heleen. qayb ka mid a gidaarka ayay ku safnayd, qayb kale baca ayay ku jirtay, qayb saddexaad oo boorsooyin ku jirta ayay heleen. sidoo kale god ka qodnaa guriga gudihiisa ayay isna ka heleen lacaga kale oo baca ku jirta. tirada guud ee lacagaha ay guriga ka heleen
heleen waxay ahayd 12 milyan oo riyaal. dadka gurigan lagu soo qabtay waxaa ka mid ahaa nin lagu magacaabo David, runtii waxa uu ahaa gudoomiyahooda. lacagtana isaga ayaa qaybinayay, sida ka muuqata buuggan oo guriga laga helay ayuu ugu qaybiyay. marka laga yimaado David iyo Antonio, guriga waxa lagu qabtay 3 qof oo kale. baaritaan kadib waxa la ogaaday inaysan dhac qayb ka ahayn, laakiin ay ahaayeen gacanyarayaal David u shaqeeya. waraysiga laga yeeshay David iyo Antonio waxa lagu ogaaday magacyo xubno kale oo ka qayb qaatay dhaca baanka. waxay isugu xirnaayeen kooxo yaryar. koox walba waxa loo furay galbaaris u gaar ah, waxaana loo xilsaaray qaybo ka mid ah baarayaasha. baadigoobka iyo soo qabashada unugyada tuugadu waxay ahayd shaqo adag oo xiisaheeda wadata. kama gaarno inaan sheekada ku soo qaadanno qaabkii loo qabtay qof walba oo tuugada ka tirsan. muuqaalkan waxaan ku soo qaadanaynaa kuwa ugu xamaasada badan. Daisy Marr waxa uu ka mid ahaa xubnaha tuugada ee la soo qabtay. waxa uu sheegay xog muhiim ah oo tilmaamaysa inuu laaluush siiyay mid ka mid ah ilaalada bangiga oo lagu magacaabo Edelson. ninkan ayaa siiyay xog xasaasi ah oo ku saabsanayd sistamka amniga bangiga. macluumaadka uu siiyay ayaana u fududeeyay inay sida ugu habboon isaga ilaaliyaan kamirooyinka. isla isaga ayaana siiyay warbixinta wiishka iyo wadooyinka ciriiriga ee u dhexeeya sanduuqyada lacagta iyo derbiyada. tanina waxay ka dhigan tahay in qiimayntii baarayaashu ay sax ahayd, ayna jirto cid ka mid ah shaqaalaha bangiga oo gacan saar lahayd tuugada. waxaynu u wareegaynaa tuug kale oo lagu magacaabo Remando Lerando. waxa uu ka mid ahaa tuugada lagu raad joogay. waxa uu ahaa nin taxadir badan oo muuqiisa iska dhaafay, codkiisa aan la maqal. waxa kormeer la saaray xaaskiisa oo ahayd qofka u dhow. runtii marna may dhicin inuu ka soo waco taleefankiisa gaarka ah. taas beddelkeeda waxa uu ka soo wici jiray taleefanada bulshada ka dhexeeya. waxa uu suurta gashay booliska inay ogaadaan meesha ay ku ballameen. sida caadadu ahayd ciidanka, qasab ma aha in dhaqso loo soo qabto, ee waxa lagu sameeyey dabagal si loo ogaado cidda uu xiriirka la leeyahay. 10 bilood ayaa ka soo wareegtay dhicii bangiga. ninkan iyo kooxo kaleba waxa lagu wadaa dabagal. maalin ka mid ah maalmaha, Remando waxa uu safar u galay magaalada Porto Alegre. waa magaalo xeebeed loo dalxiis tago. sirdoonku airportka ay uga horeeyeen oo ay ku sugayeen. madaarka waxay isna ku sugayeen nin saaxiibkiisa ah oo lagu magacaabo Alessandro oo loogu yeero Burane. waxay qaateen gaari bannaanka yaalay. ma aysan dareensan in dabagal lagu hayo. waxayna galeen gurigan aad u jeedaan. cabaar kadib guriga waxaa soo galay 3 qof oo kale. mar walba uu waqtigu gudbo waxaa soo gaaray xubno 2 ilaa 3 qof ka kooban. saacado kooban tirada gudaha guriga u gashay waxay gaartay 11 qof. baarayaashuna waxay dareemeen in halkan uu ka jiro shir lagu qorsheynayo arrimo waaweyn. Alessandro waxa uu ka baxay guriga wuxuuna u jahaystay suuqa. meel boosteeja ayuuna kula kulmay kooxo kale oo ku sugaysa. gaarigan buluuga ayay ka haysteen. sida ka muuqata sawirka xagga dambe waxa u saaran xoogaa alaab ah. waxay u dhaqaaqeen bartamaha magaalada waxayna ku degeen guriga halkan ka muuqda. baarayaashu waxay ogaadeen in gebi ahaanba gurigan ay gateen. waxa iibsaday nin lagu magacaabo Fabrizio. sida la ogaaday waxa uu ka bixiyay 1.5 milyan oo riyaal. isweydii ujeedada ka dambaysa in tuuga noocan ah ay iibsadaan gurigan. maxay tahay alaabta iyo ragga ay keeneen? dabcan waad fahmi kartaa inay abaabulayaan howlgal kale oo dhaca. waxa jiray bangi lagu magacaabo Benrisol oo ku yaala meel aan sidaas uga fogeyn guriga. bangigani waxa uu ahaa hadafka cusub ee tuugada. sida ka muuqata sawirka guriga ay gateen tuugadu iyo dhismaha bangigu aad ay isugu dhow yihiin. waxaa xusid mudan in kooxdani ay ka duwan tahay kooxdii hore ee dhacday bangiga magaalada Fortaleza. laakiin sida lagu yaqaano dunida madow ee tuugada waxaa jira xubno firfircoon oo leh khibrad ballaaran, kuwaas oo la shaqaysta kooxo kala duwan. dabagalka xubnahan ayaa suurtageliyey in la sii ogaado qorshe lagu dhacayo bangi cusub oo ku yaala magaalo ka duwan labadii magaalo ee aan ka soo sheekaynay. ogow, ciidanku weli ma hayaan wax caddayn ah. sidoo kale ma oga tirada saxda ee kooxda cusub. waxay bilaabeen inay qorsheeyaan qaab ay dabagal ugu samayn karaan howlgalkan cusub ee abaabulkiisu socdo. ugu horreyn waxay karaysteen dhismo kasoo horjeeda midka ay degan yihiin tuugadu. u fiirso, sawirkani waa guriga ay karaysteen boolisku, kanina waa dhismaha ay degeen tuugadu. gurigan saddexaadna waa xarunta bangiga. mid walba waxa uu dhibaato ku hayaa kan kale. waa jawi sirdoon oo u qalma in filim laga sameeyo. boolisku waxay ku xirteen guriga kamerooyin ay kula socon karaan dhaqdhaqaaqa tuugada. tuugaduna waxay iska dhigeen inay dayactir ku samaynayaan guriga. qaar ka mid ayaana xirnaa dharka shaqaalaha dhismaha si aan looga shakiyin. ciidanku waxay arkeen in ay bannaanka u soo saareen qashin aan yarayn. way iska caddahay inay bilaabeen qodista godka. taliyuhu waxa uu ahaa nin caqli badan, sababtoo ah wuxuu amar ku bixiyey in la soo eego qashinka ay soo qubeen tuugadu. haddii uu noqdo mutuleel ama marmar iyo sibir keliya, waxay ka dhigan tahay inay dayactir ku samaynayaan guriga. haddii aad aragtaan ciid, waxaa bilaabmay qodista godka. laakiin haddii aad aragtaan garaa'ido ama biro, waxayba gaareen dhismihii bangiga. baarayaashu waxay ku
tala galeen inay isha ku hayaan ciidda si ay ula socdaan meesha ay marayso shaqadu laakiin waxaa soo kordhay arrimo qasay jawiga dabagalka waxaa jiray aalad ay ku rakibeen agagaarka guriga oo ay ku dhegaysan jireen hadalka tuugada waxay arkeen inuu meesha soo galay dhinaca saddexaad oo aan hayn tuugada iyo askarta dhinacan oo aan weli la ogaan waxa uu hanjabaad iyo cabsi gelin ku hayaa tuugada waxay u muuqataa in dhinacani uu la socday shaqada ka socota dhismaha ayna ugu hanjabayeen tuugada haddii ay sii waayaan lacag inay u sheegi doonaan booliska lama filaankii ugu weynaa ee boolisku la kulmeen waxa uu ahaa markii ay ogaadeen in kooxda hanjabaadda ku haysa tuugada ay yihiin askar calooshad u shaqaystayaal ah oo baad ka qaata tuugada cabbaar kadib laba ka mid a ayaa yimid guriga si ay kaash uga qaataan lacagta loogu yeeray isfahan darro iyo muran ayaana soo kala dhex galay askarta iyo tuugada baarayaashuna waxay ka cabsadeen inuu fashilmo dabagalka ay wakhtiga dheer soo wadeen waxayna go'aansadeen inay faragelin degdega sameeyaan laba isneebar ayay soo saareen dhismaha ka soo horjeeda ciidan gaashaaman ayayna ku wareejiyeen dhismaha kani waa muuqaalka ciidanka gudaha u galay dhismaha tuugadu ma aysan samayn iska caabin iyo dagaal waxayna ahaayeen rag aan hubaysnayn si fudud ayayna isu dhiibeen kuwanina waa sawirada laga qaaday howlgalka lagu qabtay tuugada tiradoodu waxay ahayd 26 qof waxayna heleen godka ay qodayeen oo aad ugu ekaa kii hore cabirka dhulka ay qodeenna wuxuu ahaa 78 mitir kaliya 12 mitir ayaana ka harsanay in ay bangiga gaadhaan 26 xubnood ee lagu qabtay howlgalka laba qof oo kaliya ayaa ka qayb galay dhicii weynaa ee ka dhacay magaalada Fortaleza waana Rimondo iyo Alessandro markan waxa la soo gaaray sanadka 2007 laba sano ayaana ka soo wareegtay dhicii bangiga weli waxa jira tuuga aan soo galin gacanta dawladda marna muusan joogsan dabagalka lagu raadinayo ragga la soo qabtay waxa kamid ahaa ninka lagu magacaabo Jose Miraledo sheekadiisu waxay ahayd mid cajiib ah waxa la soo qabtay isagoo la baxay garka way adkayd in la aqoonsado laakiin waxa la socday xaaskiisa oo ahayd qofka lagu soo raacay nin dharcada ayaa u soo dhawaaday wuxuuna dhagta ugu sheegay inuu ka tirsan yahay Federal Police-ka game over ayuu yiri macnaheeduna yahay ciyaartii way dhamaatay Jose istaaga ayuu ka dhacay wuuna suuxay markii uu maqlay magaca booliis saacado kadib waxa uu soo toosay isagoo gacmaha ka xiran kani waa muuqaalka laga duubay markii uu soo naaxay 14 bilood ayaan ku noolaa duurka waxaan isu bedelay xayawaan waxaan soo maray daruufo adag mararka qaar waxaan cuni jiray qamadi qayriin injir iyo cayayaan ayaa jirkayga ka buuxay labadaas sano waxay ahaayeen kuwii igu xumaa noloshayda inkasta oo uu ahaa milyaneer haddana waxa uu ku jiray nolol kaliya tamida xoolaha wuxuu codsaday in la xiro oo looga raaxeeyo nolosha ciqaabta ee uu ku jiray waxa uuna ballan qaaday inuu bilaabayo nolol cusub oo nadiif ka ah tuugada iyo dembiyada kale ee uu caadaystay waxa laga dalbaday inuu sheego meesha uu ku qariyay qaybtii uu helay lacagta wuxuuna u kaxeeyay duurka qaboojiyaal ku jira laba jawaan ayuu ciidda ka soo saaray qaboojiyaha koowaad waxa ku jirtay lacag kaash oo uu haystay halka qaboojiyaha labaad ay ku jiraan waraaqo cadaynaya dhul iyo guryo u gatay taliyaha howlgalka oo faaleeyay waxa ku dhacay ninkan ayaa yiri haddii uu jiro qof aan hubay inuu dib ugu noqday faqrigii uu ka soo baxay waa ninkan waxba umaana reeban wax walba waan kala wareegnay eedaysanayaasha lagu raad joogo waxa kamid ahaa nin lagu magacaabo Alemao waxa la aaminsanaa inuu yahay maskaxdii ka dambeysay howlgalka lagu dhacay bangiga waxa la soo qabtay isagoo oo timaha la baxay garka sii daystay si weyn wax uga bedelay muuqaalkiisa xataa waxa uu samaystay aqoonsi been abuur ah qaar waxa uu ku qoran yahay inuu beeraley yahay kuwa kalena waxa uu qoran inuu yahay ganacsade boolisku way ku adkay inay aqoonsadaan wajigiisa maadaama uu bedelay dhowr goor ugu dambeynna waxay ku aqoonsadeen taatu ku yaalay gacantiisa midig waa la soo xiray si la mid ah saaxiibadiis waxaana lagala wareegay lacag iyo waraaqa wixii uu haystay eedaysanaha xiga aan u gudubno waqtigu waa 2008 3 sano ayaana ka soo wareegtay dhicii bangiga dhexe ee qaybtiisa magaalada Fortaleza ma xasuusataa sawirkan ninkan waa Paulo Sergio waa shakhsigii magaciisa lagu aasay shirkadda cawska ee deganeed guriga howlgalka dabcan magacani waxa uu ahaa mid been abuur ah waxa la ogaaday in magaciisa dhabta uu yahay Belo Horizonte dabagal dheer kadib waxa la qabtay isagoo ka soo baxay shirkad iibisa baabuurta dhar shacab ayay wateen waxayna u sheegeen inuu xiran yahay waxay tuseen astaanta ciidanka laakiin waxa uu bilaabay qayle aan kala joogsi lahayn ibadbaadiya way afduubanayaan waxay u sheegeen inay xirayaan ee aysan afduubanayn ugu dambeyntiina qasab ay ku qabteen gaarigana ku saareen waraysigii lala yeeshay waxa la weydiiyey sida ay ugu suurta gashay inuu helo sharci ganacsi oo uu ku dhegsan yahay sawir qaldan wuxuu u sheegay gebi ahaanba liisanka ganacsi ee uu guriga ku kiraystay inuu ahaa been abuur waxa kale oo la ogaaday sababta keentay inuu qayliyo markii la soo xidhayay wuxuu sheegay in dhowr goor la afduubtay iyadoo la isaga dhigaya boolis mar walba oo la afduubtana wax laga qaadi jiray lacag madax furasho ah si loo sii daayo nasiib darrada ku dhacday tuugadii dhacday bangiga waxay ahayd inay taargad u noqdeen tuugo kale oo rabay inay qaybtooda ka helaan lacagaha la soo dhacay arrintanina waxay ku dhacday rag badan oo ka mid ah xubnihii dhacay bangiga
markan waxaynu u gudbaynaa ninkan oo aynu sawirkiisa hore u soo aragnay waa Moses waxaynu soo sheegnay inuu ka baxsaday xabsi ku yaala dalka Brazil isaga iyo 53 xubnood oo kale wuxuuna khabiir ku ahaa qodista godadka sidoo kale waxa uu kamid ahaa raggii ka qayb galay dhicii bangiga São Paulo ee sanadkii 2004 iyo bangiga Fortaleza labadaba inta ugu badan tuugada la soo qabtay waxay sheegeen inuu yahay ninka ku soo daray kooxda fulisay dhaca sidaas darteed waxa loo aqoonsaday inuu kamid yahay saddexda hogaamiye ee howlgalka si gaar ah ayaana xooga loo saaray in la soo qabto laakiin Moses wuxuu ahaa mid ka ugu khibradda badan tuugada wuxuuna si weyn u yaqaanay habka dhuumashada ugu dambeyn sanadka 2009 ayaa gacanta lagu soo dhigay 4 sano ayayna ku qaadatay boolisku inay soo qabtaan ninkan habka loo qabtay wax badan kaga duwan hababkii loo soo qabtay saaxiibadiis waxa kormeer la saaray qoyskiisa oo dhan si gaar ah xaaskiisa waxaana la ogaaday inay la kulantay mararka qaar ayna tustay wiilkiisa si gaar ah ayaa isha loogu hayay haweeneydan ugu dambeynna waxa la ogaaday inuu degan yahay guriga halkan ka muuqda waxaana la aqoonsaday gaariga uu wato markii la go'aamiyay in la qabto waxa la hubiyay in gaarigiisu yaalo baakinka guriga si aan loo abuurin buuq iyo rabshad ama aan loo siin fursad uu ku baxsado boolisku waxay been abuureen shil gaari waardiyaha dhismaha ay ku amreen inuu la hadlo Moses una u sheegay in gaarigiisa ay isku dhaceen gaari kale sidaas daraadeed loo baahan yahay inuu la xaajoodo qofkii dhibaatada gaarsiiyay gaarigiisa waxa uu ka soo baxay qolkiisa booliskuna waxay ka daawanayeen kamerooyinka dhismaha waa kan isagoo ka soo baxay qolkiisa waxa uu fuulay wiishka wuxuuna u socdaa qaybta hoose ee baakinka markii uu gaaray qaybta hoose ee uu furay albaabka liftarka waxa uu ku naxay boolis fara badan oo sugaya filan waa iyo naxdin ayay ku noqotay waxa uuna ku yiri booliska waxaan u maleynayay inaad iloodeen 4 sano ayaa ka soo wareegtay dhicii aan ka qayb qaatay sidaasna waxa lagu qabtay mid kamid ah saddexdii hogaamiye ee qorsheeyay howlgalka kan koowaad waa Alimao oo aan ka soo hadalnay kan labaadna waa Moses haddaba waa kuma kan saddexaad ee aan weli la soo qaban ninka halkan idinka muuqda waxa lagu magacaabay Fernandinho bilowgii sheekada aynu soo aragnay sawirkiisa waxa uu ahaa tuug ka caan ah São Paulo waxa uuna kamid ahaa kooxaha ka ganacsada maandooriyaha sida ay ku warbixiyeen xubnihii la soo qabtay waxa uu ahaa shakhsi maalgeliya howlgalka waxa uuna ku bixiyay 3 milyan oo riyaal waa lacagta lagu kireeyay guriga loona adeegsaday iibinta qalabka kireynta gaadiidka diyaarinta cuntada iyo wixii la mid ah sidoo kale waxa uu ahaa shakhsiga qaatay qaybta ugu weyn ee lacagta heshiiska kooxda ayaana dhigayay in Fernandinho uu xaq u leeyahay 15% lacagta laga soo dhaco bangiga marka la xisaabiyo waxay noqonaysaa 25 milyan oo riyaal dunida madow ee maafiyada qofka haysta lacagta intan leeg waxa uu noqdaa target ay beegsadaan tuugada kale oo dhan Fernandinho waxa la afduubtay dhowr goor ragga afduubtay waxay xirnaayeen direyska ciidanka lama garan karayn inay yihiin tuugada isticmaalaysa direyska ciidanka iyo inay yihiin askar calooshad u shaqaystayaal ah waxayna ka dalbadeen qoyskiisa in loo keeno malaayiin dollar oo madax furasho ah inkasta oo reer ku bixiyay lacagta laakiin lama soo deyn Fernandinho maalmo kadib waxa la helay meydkiisa oo lagu tuuray banaanka magaalada awoodda iyo dhaqaalaha uu lahaa kama aysan badbaadin afduub iyo dil midnaba guud ahaan Latin America waxa ku xoogan kooxaha burcadda ee ka ganacsada maandooriyaha malaha mid weyn oo la ixtiraamo iyo mid yar oo lagu tunto qof walbana waxa uu halis ugu jiraa in la ugaarsado isagoo isu haysta inuu yahay ugaarsada xoog badan waxa uu suurta gashay booliska inay aqoonsadaan afduubayaasha waxaana uu caddaatay inay hayeen askar tuuga ah oo sii dhacay tuugii soo dhacay bangiga waxa la ogaaday baaritaano lagu sameeyay inay aqoon fiican u lahaayeen Fernandinho markii ay afduubteen qoyskiisana ay ka heleen lacag madax furasho ah waxay ka baqeen inuu ka aarsado haddii ay sii daayaan maadaama uu kamid ahaa kuwa ugu awoodda badan tuugada São Paulo isaga kaliya ma aysan dilin ee waxay laayeen tiro kamid ah xubnaha qoyskiisa oo ogaa xiriirka kala dhaxeeya warka oo kooban waxay baabi'iyeen dhammaan cadaymihii lagu ogaan karayay cidda ay yihiin waxaynu ka hadlaynaa waa askar malaysa daawade magaalo askarteedu yihiin tuugo dhac iyo dil geysanaysa waxaad fahmi kartaa nolosha khatarta ee ka jirta halkaas runtii Fernandinho ma ahayn shakhsiga kaliya ee ay ku dhacday inkaarta ugaarsiga labada cadow rag badan oo kamid ah tuugadii dhaca fulisay waxay taarget u noqdeen booliska oo dhinaciisa ka raadsanaya kooxaha tuugada oo iyaguna raadsanaya iyo askar calood u shaqaystayaal ah oo sidoo kale ugaarsanaya waxay ku jireen xaalad nololeed oo aad u adag kaliya marka la soo qabto ayay nasasho heli jireen qaar badan oo kamid ah ayaana sheegay in xabsigu u dhaamo nolosha ciriiriga ay ku jireen tusaale ahaan ninka lagu magacaabo Pedro waxa uu kamid ahaa tuugadii dhacday bangiga howlgalka kadib maalmo kooban waxa gurigiisa soo garaacay kooxa ku labisan direyska ciidanka waxayna amar ku siiyeen inuu iska soo celiyo lacagtii uu bangiga ka dhacay intii uusan jawaab bixin ayay garaaceen guriga ayayna xoog ku soo galeen ugu dambeynna waxay qaateen dhammaan lacagihii u yaalay maalin kale ayaa albaabka guriga lagu soo garaacay waa koox kale oo lacag doon ah waxa uu sheegay inuusan waxba haysan oo dhammaan lacagihii laga qaatay iyaguna markooda ayay garaaceen kadib markii ay guriga waxba ka waayeen ugu dambeyn Pedro isagoo miirkiisa qaba ayuu isku soo dhiibay booliska wuxuuna u sheegay inuu noolaan kari waayay oo maalin walba kooxo cusubi weerar ku soo qaadayaan tusaale labaad waxa inoo noqon karaa wiilkan dhalinyarada ah oo isna kamid ah kooxdii dhaca fulisay waxa lagu magacaabo Anselmo isaga iyo
laba ka mid ah asxaabtiisa waxaa laga soo helay gurigan gaar ahaan ceelkan ayaa laga soo saaray meydkooda dilka labada wiil waxaa ka dambeeyey askar Mooryaan ah oo kasii dhacay lacagtii ay soo dhaceen kadibna nolosha dhaafiyey si aysan marqaati ugu furin dhacani waxa uu daaha ka qaaday heerka uu gaarsan yahay musuq iyo mooryaannimada qaar ka mid ah booliska askarta calooshoodu shaqaystayaasha ah ee la soo qabtay kama tiro yara tuugada kiiskan loo soo xiray askarta noocan ah waxa uu fududeeyey shaqada foosho xun waa kaydka iyo sawirada tuugada ee gacanta ay ku hayaan meeshii ay cadaaladda horkeeni lahaayeen iskood ay u qaraabtaan wixii ay ka helaanna keligood ayaa isticmaala maalin ka mida waxaa dhacday baarayaasha u dhegaysanaya taleefanada mid ka mid a dembiilayaasha lagu raad joogo in la soo wacay dembiilaha lagana dalbaday madax furasho lacageed sababtoo ah waxaa la afduubtay qof ka mid a qoyskiisa markii dabagal lagu sameeyey nambarka qofka dalbanaya madax furashada waxaa la ogaaday inuu yahay taleefan ku xiran xarunta booliska ee ay baaristu ka socoto nasiib wanaag gacanta ayaa lagu soo dhigay iyagoo afduub iyo dhac ka dhex samaynaya xarunta booliska ee la rabay in laga sugo nabadgelyada bulshada si aad u fahanto dhacdada xarunta booliska waxaa ku sugan oo isku dhismo ku shaqaynaya askar nadiif oo sharciga ilaalinaya iyo askar kale oo tuuga ah oo sharciga iyo shacabkaba ku tumanaya uma malaynayo inay meel kale ka dhacday askar lagu xiray isla saldhiggii ay ka shaqaynayeen lana qabtay iyagoo xarunta booliska ku adeegsanaya falal sharciga baalmarsan daawade sheekada dhaca ee bangiga dhexe ee Brazil waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu cajiibsan ee ka dhaca dalkaas waa dhacdo ay ku guda jiraan kiisas kala duwan isuguna jira dhac dil afduub iyo madax furasho waana dhacdo saameynteedu socotay sannado badan ma malaysan kartaa in dhacani cashar u noqday tuugo badan oo ku nool dalka Brazil kuwaas oo isku dayay inay adeegsadaan farsamooyin laga bartay howlgalkan laga soo bilaabo sanadka 2005 booliska Brazil waxa uu fashilin jiray dhacdooyin la mid ah midii Porto Alegre ee aan kaga soo sheekaynay muuqaalka tuugada ugu cajiibsan ee la soo qabtay waxay ahaayeen kuwa hadafkoodu ahaa inay dhacaan $1 bilyan waa lacag qiyaas ahaan 10 jeer ka badan midii laga dhacay bangiga dhexe ee magaalada Fortaleza haddii ay u suurtageli lahayd tuugada ay ku guuleystaan howlgalkooda waxa uu noqon lahaa dhicii ugu weynaa ee taariikhda soo mara waxay isticmaaleen farsamo la mid ah midda lagu dhacay bangiga dhexe markan si ay uga fogaadaan tuhunka iyo shakiga waxay kireysteen guri bangiga ka fog 500 mitir waa nus kiiloomitir waxay qodeen godka ugu dheer ee loogu talagalay in lagu dhaco bangi hadafkoodu waxa uu ahaa Banco do Brasil oo degan dhismaha quruxda badan oo halkan ka muuqda waa bangiga lacagta u qaybiya dhammaan bangiyada ku yaala dalka Brazil waxa uu leeyahay 5 qasnadood oo midkiiba ay ku jirto lacag lagu qiyaasay $1 bilyan dhammaan masaafada godka oo gaaraysa 500 mitir way soo qodeen waxayna gaareen dhismaha banka waxayna ku fashilmeen qalad uu galay injineerkii dhisay bangiga oo aan si fiican shub ugu samayn dhismaha waxaana sagcadda dhismaha ka samaysmay dilaac weyn oo ka dhashay qodista xagga hoose ka socota ugu dambeyn kiiskan waa la fashiliyey gabagabada muuqaalka boolisku waxa uu ku guuleystay inuu gacanta ku soo dhigo dhammaan xubnaha tuugada marka laga reebo kuwa la dilay laakiin waxaa jira hal dambiilo oo aan ilaa maanta la soo qaban waxaana lagu magacaabaa Juvenal dhinaca lacagta waxa uu suurta gashay inay soo ceshadaan 34 milyan oo riyaal runtii waa lacag iska yar marka loo eego lacagtii laga dhacay waxaa loo badinayaa lacagta maqan in la dhaqay oo ay noocyo kala duwan u dhex gashay ganacsiga nadiifta ah waxaa lagu iibsaday baabuur guryo iyo wixii la mid ah halka qaybaha kalena lagu bixiyay madax furasho soo qabashada tuugada ka dambeysay howlgalka waxay guul weyn u noqotay dhammaan ciidanka dalka Brazil waxaana lagu xukumay xabsiyo dhaadheer oo u dhigma xabsi daa'in tusaale ahaan 100 sano ayaa lagu xukumay qaar ka mid ah tuugadan sheekadan waxaa laga sameeyay film lagu magacaabo El Gran Robo del Banco Central de Brazil oo macnaheedu yahay dhicii ugu weynaa ee banka dhexe ee Brazil filimkan waxaa lagu soo bandhigay shabakadda Netflix intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta oo aan kaga warranay mid ka mid ah sheekooyinka ugu xiisaha badan ee lagu dhacay bangiyada adduunka iyo sida dabagalka loogu sameeyay kiiskan oo ahaa mid isku murugsan oo ay ka dhasheen kiisas kale oo badan